munaasabadan ay iskugu yimaadeen dhalinyarada iyo aqoon-yahankani ayaa waxaa lagu soo dhaweynayay aqoon-yahan maxamed cabdi cali oo in muddo ah ku maqnaa dalka dibadiisa waxaana halkaasi hadalla ka soo jeediyay dhalinyaradii soo dhaweysay aqoon-yahankani waxaan soo dhaweynaynaa oonu kaga faa'iideysanaynaa fursadan qaaliga ah haddii aanu nahay dhammaan teamkii studentska la ahaa waqtigii uu maxamed jaamacadda ku jiray khaasatan facultyga economiga waxaanu leenahay isku xidhnaanta iyo dhalinyaradii aad wax la dhigan jirtay waqtiga oo imka runtii odayaasha ku badan yihiin waxaan ku leeyihiin mar labaad iyo mar saddexaad iyaguna si gaara fadlan ku soo dhawow dalkaaga hooyo maxamed cabdi cali horta alla hadaaye waa nin dhalinyaro ah waa nin gaashaan qaad noqday isagoo aad u da'yar oo markaa 20ka uu madaxa geliyay waxaan ku soo koobayaa ammaantiisa waa ninka isaga oo 20 jir ah 21 jir meelahaas haddaanu kaba yarayn dugsi gaar uu leeyahay samaystay waxaan xasuusnahay anigu xagga xisaabta anigu intaan arday wax soo dhigayay runtii wuxuu iigu jiraa ardaydii ugu horeysay ee maadada xisaabta ama xisaab aan dhigaayo macnihii siduu u fahmayay iyo siduu u yaqaano beriga iga nasi ragii la kalaaska ahaaba ii marxaatiya maxamed oo aan yara fadhiistay bal luqadiinii kula hadal ugu dambeysay bal waa tan ay fahmi waayay yara bedel baan ku oran jiray siyaasi maxamed xasan dirir iyo maamule cali axmed balayax oo iyaguna halkaasi hadalla ka soo jeediyay ayaa yiri munaasabadan soo dhaweyntiisuna micno gaar ah iyo farxad bay sameynaysaa sababtoo ah isku deegaan baanu ahayn isku arday baanu ahayn saaxiib baanu ahayn waliba sida loo sheegay in fikrada badan buu ahaa oo meel fog wax ka arka runtii maxamed oo ducaynaya waxaan filayaa ardaygayga waa aniga wax salaaxa marka ardaydan aad iyo aad aanu isha ku hayno ayuu ahaa inuu daraasadda samayn jiray inuu oran jiray waqtigii ay macallimiintu yaraatay isaga iyo rag badan oo halkan fadhiyaba gurmad baanu ka dhignay gurmad ayaanu ka dhignay oo macallimiintii hore la foolay iyo macallimiintii hore markay daaleen ee la yaraaday ardaydiina ay farabadatay ayaa waxay noqotay inaanu nidhaahno waa inaynu ku shaqaynaa system la yidhaha in service training oo ardayda wanaagsan aynu macallimiin ka dhignaa aqoon-yahan maxamed cabdi cali oo ugu dambeyntii halkaasi hadalla ka soo jeediyey aan ku bilaabo mahadnaqa ah maxamed xasan dirir iyo ninka loo yaqaano maax oo garsay qofku markuu muddo maqan yahay wuxuu garanayaa yacni dadku siday kuwa xasuustaan iyo siday dadku iskugu xidhnaayeen intaana hadalkayga gudagelin dadku siyaabo kala duwan bay soo dhaweeyeen qaar waddadaan isku aragnay qaar telefoonkayga la soo hadleen waan uga mahadnaqayaa maxamed iyo ninka loo yaqaano maax inay fursadii siiyeen inaan la kulmo dhalinyaro aqoon-yahan ah oo isku xidhkaygu kala duwan yahay qaaraan macallin oo ahaa qaaraan arday isku ahaan jirnay iyo qaar aan saxaab ahayn ama iskuul meed ahaynba qurbaan ka yimi muddo aan ku maqnaa marka la qeexayo wax loo yaqaano home waxa lagu qeexay inuu yahay waa halka qofku uu ku qaato wax loo yaqaano primary iyo intermediate educations marka dad baa jira ku kora dhulal kala duwan laakiin qofku halkuu la leeyahay xiriirka ugu faraha badan leh waa barta uu kula koray uu ku qaatay dugsigii dhexe iyo dugsigii sare waxaan taa qirayaa nimanka asxaabtana ee dugsigii sare aan wada dhigan jirnay iyo nimankii aan jaamacadda ka wada baxnay waxay noqdeen dadkii ugu dhowaa ee aan boholiyow isu dareenno waa maxamed xuseen ibraahim samni adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo ii-dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda dahabshee haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida